بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع. دمان ولا كنت حبيتك وين سلامي ودرسي حضارة إسلامك. waxaan kasoo hadalnay xuquuqaha ee dowladda muslimiinta ama ilbaxnimada islaamka uu kusoo kordhiyey adduunka intiisa kaleento oo ka dhigay ummadda muslimka dad xuquuq isku leh dhinac walbo xuquuqda bani aadanka usrada qoyska kulla shay qof walbo inuu xuquuq siiyo islaamka sidoo kale waxyaabaha xadaaradda istaadiyay maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuca jaanib alxuriyaat qofka inuu free ahaado xornimo ku noolaado independent uu noqdo sidaas oo kaleento islaamka dadku wuxuu ka dhigay axraar uu ka dhigay oo dadka ma ahan dad inuu bani aadanka isgumaysto isaga dhexdiisa oo qolada ay ka adag tahay magaxa uga istaagto shareecada ma samaynin dadka wuxuu ka dhigay musaawaa alcadlu in allaha ya'muru bilcadli walixsaan dad siman oo musaawaad ah oon kala saraynin oo siman laha fadla licarabiyin cala cajabiyin marka xataa diimaha kaleenta dadka aaminsan xoriyad taama islaamka siiyey qof lagu qasbay islaamka inuu soo galo ma jirto meel kasta oo muslimiinta ay qabsadeen ama ay la wareegeen dadkii loogu tagay diimaha haysteen lama qasbin inuu islaamka soo galo inuu jisiye bixiyo iyo inuu dowladda muslimiinta ku hoos noolaado bas wax kale laguma qasbi jirin hadda kan xarbiga bas qofka gaalka dagaalamaya bas waa shareecada amartay in lala dagaalamo oo la iska dhiciyo dhulka islaamka laga difaaco laakiin laa ikraha fi diin qadacadaas kusaa faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur qofkii doona ha rumeeyo qofkii kale cid lagu qasbaa ma jirto nin maxay tahay nin madax oo Maamud bin Atar la jiro Yemen ka talin jiray oo oday dhaqameed ahaa yaa la soo qabto la soo qafaalo masaajidka nabiga lagu soo xiray haye islaameysa lagu yiri ma yama islaama yiri maraba diyaar uma yidhaa islaam haye maxaa rabtaa haddaa idishara nin sharaf loo qiimo lahaa dishu yiri oo la yaqaano haddaa ay cafisana nin sharaf lahaa cafisu dhaa saddex maalmood rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu waqti siiyay ka bacdi waa iska fasaxay marka ma jirto qof lagu qasbay inta taariikhda islaamka ummadda muslimka adduunka tirinayeen maxay ahayd qof lagu qasbay diinta islaamka inuu soo galo afa anta tukrihu naas hatta yakunu mu'miniin wama alayka ila albalaaq almubin marka xoriyad diimeed ee adiyaanta ee ahlu diin la dhihi jiray dadka ku hoos nool caalamka muslimiinta qofna sida muslimiinta si kale looga qaado asagana jisiya laga qaadi jiray baqad dhaqaalahoodii iyo ganacsigoodana canshuura laga qaadi jiray laakiin laguma xadgudbi jirin xoolahoodii iyo gurigoodii iyo beerahoodii iyo dumarkoodii midna lama taaban jiray xoriyatul caqiida iyo maxay tahay ilbaxnimada islaamka gaar la tahay sidoo kale inta xoriyatul fikri islaamku wuxuu maanta qofka inuu fakiro oo maxay tahay tafkiirkiisa xoriyadu qofka helo nololna uu helo xuquuqna helo marka halkaas xadaarada ka bilaabatay tafkiir oo muslimiinta quraanka fikrinta ku imaada 19 aayadan jecel hadaan khaldaneen ولا أفلا تفكرون أفلا سيروا فانظروا انظر فكر أفلا تعقلون أفرتني سؤال آيات يا عقلي الله سبحانه وتعالى وكجهل ولا فلم يسيروا فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها marka intaas oo ayadu kaga hadlay maxay ahayd Allah subhanahu wa ta'ala qofka inuu fakaro oo marka hal abuurkiisa iyo wixiisa dhan uu maxay ahayd xor u ahaado taasana keento ummadda muslimiinta inay hal abuur wanaagsan oo ka duwan ummadihii hore kaleento ay la yimaadaan sidoo kale xoriyatu ra'yi islaamku ma aha diin dadka caburiso oo diin cunfi ah oo dadka maxay ahayd barashar saarto oo qofka wir hadal ani daba soco bas uusan ahayn rasuulka sallallahu alayhi wasallam su'aalaha hatta hadalka lagu celin jiray oo la weydiin jiray ya rasuul sallallahu ya Muhammad saxaabada baadiyanta ka imaadaan rasuulka la doodi jireen hadana waxa uu musa arki jirin maalin ma kamid Umar wuxuu dhahay meherka ma hadda gabdhihi meherka dadka ku qaaliyeeyeen meherka waa inaan xadidnaa oo dhaqaale macayna ka dhignaa gabadha soo bood waxay ku tiri maxay ahayd nabi ilaahay rasuulkiisa ma xadidina adima xadidaysid dhaaday markaas yiri akhda Umar wa asawat imra'atun Umar waa khaldamay waxa sababtay oo saxsaday marka qofka fikirkiisa madaxa nidaamkaasna maanta reer galbeedka isticmaalaan oo maanta madaxweynaha hadii si kasta wax looga sheegay ama si kasta loola dooday qofka shacabka lama hadli karo juuq uma dhigi karo halka anaga madaxda noo talin hadaa qala hadash ama afku taagtay markii qorta laga jaray oo lagu diray marka islaamku wuxuu ahaa diin xor ah oo ra'yiga fikirka la isku darsanayo ra'yiga fikirka rasuulka sallallahu alayhi wasallam ku dhintay saxaabadii waa la kulmay yaa talinaya la marka ansaar markay waxay ku kulmeen hoolka isugu imaan jireen bani saqiifat bani sacad isugu imaadeen waxay dhaheen anaga talin islaamka anaga istaajinay ما قريش إماد وحده ما إسلام والدين كيانه رسول صلى الله عليه وسلم وسوي جرود أنا إيمانه أنا عقاب كده كانوا وضعي رسولهم هاجر قف بوسك سجل إنه هاجر نقطة ما كده أنصار وتناجس مكا أبو بكر هالكسر قدرت مكا ربطان مسلمين إيه ربار أبو بكر عمر قدرته كده من نظام السياسة دو اسبدله لكن حرية الرأي إسلام أصلا حنقبه سيدا كل حرية النفس قفك لما يقول بيسكر حرية النفس محيط الله فضل لعربيين على عجمين maxay qof kale kama sareeyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam maxay ahayd wuxuu hatta dadka adoomada iyo dadka shaqaalayaasha kulli xuquuq u siiyay muadinkii u horeeyay indool buu ahaa marka qofka inuu xoriyadiisa uu yahay maxay ahayd
وياها قف حر نفس أهان حر حتى كان وشقينا كان محيط أعد الأجير قبل أن يجلس مقطع إسلام ولا ماضي محيطه كلكم لآدم وآدم من تراب ولا وضع سما محيطه الضوامد وحالي أدعموهم بما تطعمون بما تدعمون بما تأكلون وألبسوهم بما تلبسون وحتى محيطه قفك هوس ما في رينكتي حرية نفس عبيسي اسجميسي محيطه قفك كانت استغلاء شرعت ويديد وحتى قفك قنيga lacag laga qaaday qofka kale inta waxa la siinay xaq la siinay waxa kale inta sharciyada ay leeyahay xorriyada tamalluq qofka inuu hanti sameeysto وواحد maxay hanti abuurto dhaqaale abuurto mashruuc sameeysto shirkad sameeysto guriyo dhisto beero sameeysto xorbu ah ya islaamku looga dhigay oo qofka xorriyad mulki oo fardiyo uu sameeysan karaa mulkiya jamaaciyan uu sameeysan karaa halka maanta marka waxa Soomaaliya la dhankay qofka waxa doonto sameeyso laakiin wax canshuur iyo wax xuquuq qofku oo ku leeyahay ma jirto marka qofka dawladda canshuur ka qaadanaysa lacag intiisa kala saa iskale xaqi masaakiinta iyo sadaqadii iyo sakadii waajibka qofku ku yeeshay way ka maqan tahay meesha marka Soomaaliya loo sameeyay waxaana keenaysa marka in qofku uu maxay تصرفك مالكيس أصير قاس وياهي فقط دولة عشور بس إيك قادس مركا هلكا وحا مغن مركا حقي مسكين كامغن حقي مسكين وقفك قنيجا كلها قفك لدن واعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم قفك قنيجا سنويا دقالة شرعتك قادسة وحال سينا كان مسكينك مسكينك أما كان محتاج كلا سينا سيدات قفوا شرع القرآن كوشيء مركا تاسع مغن رأس مالي متك لو كدوان هذا لسه شيوعية أما اشتراكية أو إن قفك وحي سقدام بدولة إمام ولا أسأل مشار بس أكله أسأل مشار أكون ولا هذا إيميل وسحت بس أكله أنت كلا دولة قادنس دولة قادنا وقالت كلا ظلم كلا لكن تاس إسلام كمسلمين قفك حرية دولية قالوا سميسن كرا شركة أورن كرا غريو دسن كرا بيرو سميسن كرا لكن حق سكو الدولة كلها يلا قاضي حق سكو yaa laga qaadaya sidoo kale inta hantida dadweynaha ka dhaxayso ceelasha oo kale inta wabiyada oo kale inta badaha oo kale inta maxay ahato beeraha caamka oo kale inta meelaha seerada oo dawladda ay xabxabso taas dadka askale dawladda haynayso waxa markii loo baahan yahay dadka min shacab ila shacab dadka hadii seerada sameeyo xoolaha muslimiinta lagu ilaalina hadii ceelasha la sameeyo ceelkaas dadka ku agnoola askale hadii masaajid la waqfo dadka meesha degan ayaa qofkeedona u dhiibanayaan hadii maxay tahay waqaf uu yahay yaa shaqada wasaaradda waqafka ku wada dhacaysa masaakiintii iyo muxtaajkii macallinkii imaamkii khadiibkii muftigii dadkaas la siinaa indhoolkii dadka baahida qaar ka qabay halkaas sadaqaadka dadka waqafka dhan meel gaaray leedahay insha Allah taala uu imaan doona marka xorriyatu tamalluk iyo sharciyada qofka siisay oo qofka wixiisa lama qaadan karo sidoo kale xagga qoyska shariicada sidoo kale xorriyad ahaan labada qofood markay nolosha isku darsanayaan si xor isku guursanayaan gabadhii marka halka gabadhaha la duugi jiray oo la xaqiri jiray oo dhaxal la'aan ahayd oo xuquuq la'aan ahayd Allah subhanahu wa ta'ala suurad kaamila iyo gabdhaha ugu macdaranaysa oo xuquuqdooda dhan lagu sheegay ilaa hatta hadii laga dhinto suurad kaamil iyo dalaaqa ku sheegay hadii la furo hatta ilaa la dayici karin uu kaga hadlay sidoo kale wuxuu kaga hadlay dhalinyarada inay guursadaan oo maxay qoyska inuu ilaaliyo islaamku uu ilaaliyay من استطاع منكم الباءة فليتزوج qaabka qofka uu dooranayo gabadha waxa loogu dooranayo ninka waxa loogu dooranayo ayadana islaamku waa diinta ugu wanaagsan ee qoys ilaalisay oo labadan qofood nolosha ku midoobaya kan qofka kale xuquuq ku leeyahay qof kale tan waajiba saaran gabadhi waajiba ninka ka saaran ninkina gabadha waajiba ka saaran الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا حق نفقة لينفق ذو سعة من سعته أيضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ninkii wuxuu darajo dheeri ku leeyahay gabadha ku leeyahay marka isku xuquuq yihiin oo asaga wuxuu ku leeyahay ay ku leedahay laakiin asaga dheeri ah waxa sababtu maxay tahay nafaqadii baa saaran nafaqadii booskii aabeed asaa ugu jira walahunna mithlu walirrijali alayhinna darajo gaar ah iyo gabadha ninka kaga dheeriyahay oo ah inuu mas'uul ka yahay inuu asaga mas'uul ka yahay intay noosha sidoo kale islaamku wuxuu xuquuq siiyay caruurta quraanka wuxuu diiday walaa taqtulu awlaadakum min imlaaq nahnu narzuqukum wa iyyahum walaa taqtulu awlaadakum khashyata imlaaq marka ilmihi in la dilo waa sharciyada ilmaha waa la iska dili jiray duur suuqa la geyn jiray waa la beecin jiray waa gabdhaha waa la iibin jiray inta weydiiday qofka waalidka ilmaha wuxuu ku leeyahay xaq kaamil ku leeyahay intuu dhashay ilaa uu ka koro albintu hatta tatazawaj wal walad hatta yaktasib inta carruurta adaa dhashay ifkana adaa keentay aakhirna su'aasha adaa ku horeysid taa waalidku inay gartaan وقفوهم إنهم مسؤولون فلي الله سبحانه وتعالى كلكم مسؤول عن رعية الله والدك سؤاش كو بلاونسا قيامة إلمهكم بلاونس إذا حق وذا كهريك هذا حق والدنمو waxaad leedahay marka eega kooda ka soo baxdo marka taas shariicada islaamku siisay
oo marka maxay ahayd qofka ilmahaada inaad koriso iyo mas'uuliyad sayso ilaa ay dad isku filan noqdaan gabadha mas'uul hesho wiilkan uu ka guursado oo marka maxay ahayd wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat hatta in gabdhaha la dilo la diiday taasna waxa waa sharciyada inay ka dhigto ilmaha xataa inay xoreysay oo ay ka saartay maxay ahayd ay ka saartay duulinimada ay ku jireen iyo ilmaha suuqa la iska geenay inta la beeciyo dhaqaale laga qaadanayo waxay islaahdan sharciyada ay ismaxaytay qoyska isku xirnaanshaha tamaasukul usra waqad rabbuka alla ta'budu illa ma yablughanna 'indaka walidka markuu duqooba xuquuqa sharciyada waa ilmihi koriyay iyo xuquuq ku leeyihiin imma fala taqul lahum if wala tanharuma واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الى كبق عليه ارحام تحسغو سينيسين اذا maxay qofkii cashiiradiisi iyo qaraabadiisi iyo raximkiisi sidoo kale xiriirin gaar ay ku leeyihiin oo marka maxay ahayto qofkii inuu dadkiisa haduu hada wax bixinayo haduu wax sixinayo siratul arham ya maxay ahayto sharciyada ay amartay oo dadka inaysan maxay ahayto oo qofka dadka maxay ahayto qofka al-awla fal awla sida loo ka shaqiiqa kula hooyo ku aaba kan kugu aabaha kan kugu hooyada kan kulma adeerka kan kulma tiga kulma tibeeda tihiin kan maxay ahayto guur ku kulanteen ka kulli intaas oo dhan xuquuqa iyo sharciyada ka dhaxaysa iyo maxay ahayto isxiriirin iyo maxay ahayto iyo inaan isku xadgudbin sida marka intaas oo dhan sharciyada ay sameeyso marka waxa ka dhalanaysa marka mujtamaci inuu ilaashado darsiga kale noqon doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.